mas-uuliyiinta ururka qareenada ee Soola oo maanta warbaahinta kula hadlayay xafiiskooda ayaa waxa ay ka hadleen khilaafka ka dhex taagan mudanayaasha golaha wakiilada ee ka dhashay doorashadii gudoomiyaha golaha wakiilada waxaana ay mas-uuliyiintani ay soo dhaweeyeen qaraarka ay maxkamadda sare ay ka soo saartay doorashadii gudoomiyaha golaha wakiilada sidoo kalena mas-uuliyiinta ururka qareenada ee Soola waxa ay mudanayaasha golaha wakiilada ay u soo jeediyeen talooyin ku aadan dhanka sharciga waxaana gooreen halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka qareenada ee Soola Maxamed Maxamuud Xaashi iyo gudoomiyaha ku-xigeenka ururkaasi Cabdinaasir Cabdilaahi waa kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya sida maalmahan gudoomiyaha iga horreeyay sharaxay waxa maalmahan saxaafadda hadal haysay muxuu khilaaf ka soo baxay golaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo lagu dooranayay shirgudoonka golaha arintaas gariiqaanka golaha ayaa wax ka yiri qolo qareenaa kale ayaa wax ka tiri maxkamadda ayaa go'aan ka soo saartay qaraar ka soo saartay doodaha iyo qaraarkaas runtii yara kala duwanaa dadweynaha aad moodo inay ku abuurayaan confusion amba isfahwa intaasaan maanta yara jeclaysan inaan dadweynaha u iftiimino bal sharci ahaan booyadka aan ka taaganahay amba saan u aragno lambar 1 maxkamadda dastuuriga ah waa maxkamadda dastuuriga ah ee ugu sarreysa dhinaca khilaafka sharciga waa maxkamadda ilaalisa dastuurka waxa loo yaqaano supremacy of constitutionalism waa maxkamadda ka garnaqda khilaafaadka dastuuriga ah ee ka yimaada golayaasha hay'adaha kale ee dawladda ka dhinaca madaxtooyada doorashooyinka khilaaf kasta oo dastuuriya amba xeerar iska hor yimaada ha noqoto amba fasiraad ha noqoto iyada awood u leh inay ka garnaqdo su'aashu waxay tahay dhacdada ka dhacday golaha wakiiladu ma yahay khilaaf dastuuriya maxkamadda arji baa horiyay arji dacwadada oo cid ku dalbanayso in su'aashaasi loo in doorashadii golaha lagu celiyo ayaa horyimi ama soo musuqmaasuq darteed ha noqoto amba wax inta ha noqoto maxkamadda arjigaasi ka jawaabtay arjiga maxkamaddu waxa tiri arjigani ma waafaqsana oo nuxurkiisu kama hadlayo dacwad dastuuriya waxaanay tilmaantay in goluhu dib loogu celiyo iyadoo loo raacayo xeerarka golaha iyadoo maxkamaddu sii iftiimisay qodobka 42 ee xeerarka arintaas maxkamaddu ma ku saxsan tahay mise ku qaldan tahay su'aashu tahay waxaan aaminsanay maxkamaddu arinta ku saxsan tahay tilmaan bay bixisay tilmaanta ay bixisayna waa xeerarka golaha marka qadiyadu noqonayso qadiyad dastuuriya waxa ay arjiga in la soo waafajiyo dacwad dastuuriya oo uu jiro khilaafaad qodobada xeerarka golaha ku saabsan oo la leeyahay waa la faalad garay amba waa la jabiyay lama marin lama tabaqo waa la diiday tilmaanta maxkamaddu bixisana waa tilmaan sax ah oo maxkamaddu awood bay u leedahay in arjiga diido dacwadda in ay dib ugu celiso cidii authority u lahayd in ay tiraado nidaamkaas soo mara inta awood buu leedahay go'aanada maxkamadda daan la ixtiraamina waxay dhacaysaa in ay dawladnimada iyo hay'adnimada meesha ka baxdo cid kastaaba waa inay ka dambayso sharciga oo sharciga loo aqoonsado qof haddii sharciga qof loo aqoonsado nidaamka dawladeed iyo sistamka dhow hagaagaya haddii laakiin aan qof loo aqoonsan hebel baa qalooci loo aqoonsado waxbaa khaldamaya gartuna Soomaalidu waxa tira garan laba ninka wada qosiso qof walibana rabitaanka uu rabo sidoo doonayo inuu ka helo maaha uu ka rajeeyo hay'adaha garsoorka amba cadaaladda gacanta ku haya waa in tilmaamaha iyo waxa soo go'aamiyay uu hogaansamo goluhuna khilaafkooda dib loogu ciiga xalisan doono taas waa taa arinta labaad soo jeedina waxa weeyaan waa talooyin aan u baahanahay ama markaanu eegnay waxa ka maqan meesha
sida caadadeenna Somaliland waxa jirta in maalin walba xeer lagu marmo boqoda ama dhacdo lagu marmo la isma yiraahdo dhacdada wax ka qabta maanta haddii lagu marmay aan baa mid madow keentay bari soo noqonaysaa bari waxa laga qabtaa isma yiraahdo sidaan ognahay qola waxay ku cabanaysaa corruption baa dhacay oo golaha dhexdiisa corruption ka dhacay xeerkii maxkamadda dastuuriga ee haddii corruption dhaco iyo haddii uu nidaam procedure maxkamadda dastuuriga loo maro oo jira ma jiro nidaamka ciqaabta halkee loo marayaa haddii corruption dastuuri dhaco iyo hay baadhista yaa diraya waa nidaam xeerada looma qorna horena waa loogu marmay maantana waa lagu marmayaa barina waa lagu marmi doonaa haddaan maanta wax laga qaban golayaasha waxaan soo jeedinaa qabiyo badan oo sharci baa jirta oo ka maqan dalka oo xeerka procedure maxkamadda dastuuriga loo maray ka mid yahay xeer hoosaadka golaha laftiisa wax badan ba ka maqan kuma filla xeer hoosaadku kama hadlayo nidaam doorasho kama hadlayo nidaam khilaaf loo xalina kama hadlayo inta uu ka hadlayo waa qaab loo codeynayo sida loo soo jeedinayo simbal kaliya goluhu inta waa ka bilaadeen laadankuna waxa jiritaanka uu sax noqonaya marka ay daboolaan baahiyaha jira ee hor yaalla ee bari lagu marmi doono isaad lagu marmi doono intaas waa talo waxaan soo jeedinayaa in si degdeg ah xeerka nidaamka lagu dooro loo marayo maxkamadda dastuuriga la sameeyo xeer hoosaadka golaha baarlamaanka wax laga bedelo oo lagu daro nidaamyada khilaafkan doorashooyinka dhici doona iyo nidaamka baadhista haddii dacwad crime uu ka dhaco dastuuriga ka dhaco sida loo diri doono nidaamkaasoo dhow maqan yahay golayaasha baarlamaankana waxaa leeyahay intaad qadiyadan yar ka hadlaysaan lagu degdegay muranka badan qaadana macno lahayn waqti badan lagu luminayo in baahida jirta la daboolo si aanay bari u soo noqon intaas soo jeedinaya dhinaca kale maxkamadda dastuuriga sida ku xusan xeerka doorashooyinka iyadaa le final ka u dambeeya lagu dhawaaqayo xirida marka natiijada doorashada komishanka ku dhawaaqo finalka iyadaa leh waa dhacdo dastuuriya oo xeer baa sheegaya iyadaana hoos imanaya laakiin tani waa go'aan gole oo isdoorta oo isu codeeyay xeer hoosaadkooda ahayd inuu sheego nidaamka loogu maray maxkamadda loo gudbinayo maxkamadduna arjin bay inbay tilmo waafaqsanay sidaa guud ahaan intaanu ka hadnana waa intaa aad baan u salaamanaa dadka iyo wariyaasha iyo cidda kale naga qayb qaataba wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الدنيا والدين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ما أنت تعرفتها تطبيق تبكي بشي ستيدات لابد يكون تطبيق تبان وحأور قرينات جلوس سبيل الله صلاة وقبرية أرين وكذا هالليو دعوين كصابسا قلاه وكيله iyo wixii maalmaadii soo socday oo ka mid tahay maxkamadda sare qaraarkeedii waxa uu soo saarayaa arintaas waxaan ka oranayno kow ururku wuxuu cadeynayaa shacbi weynaha Jamhuuriyadda Somaliland in aanu jirin haba yaraatee arrin dastuuriya oo iskhilaafsan balse muranka galuhu ay ahayd mid ay iyagu marka hore garab mareen xeer hoosaadkooda maxkamaddana waxaa loo gudbiyey arji si qaraarkaasi uu sheegayo maxkamadda tiri arinta arjigaasi ma aha mid dastuuriya laakiin maxkamadda sare qaraarkeeda kuma oran
dacwad ka soo baxday ama isku hayaan golayaasha wakiiladu lama qabanayo ama ay soo hortaagtay haddaba waxaan cadeynaynaa in maxkamadda dastuuriga ahi shaqadeedu tahay inay ka garnaqdo arrin kasta oo ka dhex dhacda golayaasha wakiilada ama guurtida sidoo cadeynayo qodobka 98 ee dastuurka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya xarafkiisa ja mana jiro cid oran karta lagama garnaqi karo dacwad dastuuriya laba in aanay jirin maxkamad dastuuriya oo oran karta lagama garnaqi karo khilaaf sharci oo ka dhex dhaca golaha wakiilada kaas oo ku dhisan asal ahaantiisu sharciyadiisu kuwo dastuuriya golaha baarlamaanka wuxuu ku dhisan yahay qodobo dastuuriya ka bilaabma 38 ilaa 56 ee dastuurka qaranka halka golaha kursiga ku dhisan yahay qodobka 17 ilaa 79 ee dastuurka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland qaraarka ka soo baxay maxkamadda dastuuriga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu yahay mid si cad u tilmaamay in golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland ay dib u raacaan qodobka 24aad ee xorriyadooda kaasi oo sheegaya in haddii arrimaha dhexdooda ama cod ka qaadayaan ay ku dhisi karaan xeer hoosaadkooda kuna noqon karaan inta uu banaynayo xeer hoosaadkooda soo ku dhisan dastuurka qaranka saadarteed waxaan dadweynaha u cadeynaynaa in aanu jirin khilaaf sharci ee uu jiro muran sharci saadarteed waxaan ku soo koobayaa in dadweynuhu xaq u leeyihiin laftoodu inay sharcigooda ay bartaan oo ay qodobada aan ku tilmaamnay qodobka 38 ee dastuurka ay ku dhisan yahay golaha wakiiladu sidoo kale 37 iyo 79 oo ku dhisan yahay golaha guurtidu ayna keeni karaan website-yada golaha baarlamaanka qof kasta ay waajib ku tahay inuu barto sharcigiisa